mid ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag oo ah kuwii colaadu ku dhex martay deegaanadaasi degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag waxay ku eedeeyeen xukuumadda Somaliland inay indhaha ka qarsatay colaadaha ka dhacaya deegaanadaasi sidoo kale odayaasha iyo waxgaradkani waxay ay ka hadleen weerar jabhadda uu hogaaminayo Korneyl Siciid Caawil Caare oo ka dagaalamay deegaanka Dararweyne oo ay sheegeen inay soo hubeeyeen maamul goboleedka Soomaaliya Puntland waa sida hadalka odayaasha iyo waxgaradkani u dhigeen waxay geesta kale waxay odayaashani sheegeen in ay culays ka saarayso dawladda Somaliland odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda bariga iyo galbeedka degmadaasi Ceelafweyn inta xildhibaanada leh ee gudoomiyeyaasha leh ee hadii beedmaayo ciidamada leh ee cid walba leh waxaan u aragnaa inay dab ku sii qabanayaan halkan qof aan xogagaal ahayn oo aan halkan iman oo waxa jira ogeyn ayaa wuxuu ka hadlayaa wax kale oo dab ah ana waxaan u leenahay warninkii wax ka qabanayo waa ku qala waxaan kala halkan ka sheegaynaa halkan dagaal baa ka dhacay si badan baa looga jawaabo looga hadlay waxa ay ka dhaceen wax weyn ma labada beelood ay isku leeyahay dal ma kala leh oo aag ma kala leh oo qabiile ma kala leh waa dad isku mid ah waa dad isku meel ah dagaalka halka ka dhacay waa dagaal ka qorshaysnaa Garowe oo Puntland laga soo abaabulay haddii aanu sidaa ahayn macnaha ciwaanka geel baa la isku laayay geel daranta looba diiday walba gurigiisa ku joogo geel baa daran loo diiday maaha waxaan u aragnaa dagaal laga soo abaabulay Garowe oo halka ka dhacay dawladda waxay sheegay madaxweynaha waxaan u sheegay weligeed ba qabaa'ilku isleeyay eelka la isku laaya cawska la isku laaya geel la isku laaya khasaaraha meesha ka dhacay waa loo biyaa rag iyo xoolo waxaan u saleena siyaasadii dawladda ma waxay noqotay in weerarka dibadda ka yimaadana la yiraahdo ciidanka xaw bixina reeraha gudaha isku laynayana in la yiraahdo cid cagta la saaro siyaasadii dawladda maanta joogtay kulmiye ma waxay noqotay in dalka dibadiisii uu banaanaado ciidamadii qaranku ay iyagoo tiknikadii Puntland ay garaacayso oo sirqooyinkii iyo sabyaantii iyo dadkii maatanaha laynayso ay Dararweyne joogaan oo laga bayray oo magaalada looga bayray waa xaqi doonaan uga baxeen Dararweyne oo ka soo xumaaba labada midba ciidamadu waa joogeen Ceelafweyn waa joogeen Dararweyne waa joogeen Xirgaab waa joogeen waa la isku eegay waxa markaa dawladda markaa hadda waqtigan jirta Somaliland iyo waa kala jad xukuumadda hadda joogtaa way dayacday inta Puntland baa laga soo duulay iska daa wax la diray odayaal raqaya baa la diray dumar baa la diray daahiyada baa la furtay de waxaas waxba maaha hadda marka laga bilaabo aanu raayahan waxaan qabaa dawladdan kulmiye kalsoonidii waanu kala noqonay haddaanu nahay ka yimi ciidanka ka yimi waxay la laayeen dadkii birmageydada ahaa ee masaajidada joogay indhooraha ahaa aan soconayn iyo kuwo aan qaranka Somaliland ba laga dilin oo mudakara dumar baa ku jira dadka la laayay waxaan u sheegaynaa beelaha artii aanu dariska nahay ee walaalaha aanu nabadda ku wada noolayn iyo dawladda Puntland hadda caare u soo dirteen in Somaliland la dagaalamo lama dagaalamin reer la yaado bahuu la dagaalamay ogaada godobta in hartino hayo horta marka ugu horeeyo harto daris baynu walaalayno hay nabad baynu ku wada noolay horta marka la leynayay dadka shacabka ee birmageydada ciidanka Somaliland Dararweyne uu joogay meesha wax lagu leynayna Dararweyne talaabada labaad ay dawladdu qaadana waxay ahayd baaqigii intii caari ka tagay inay dawladdu oo ciidamada Somaliland agta mariyaan baarayaan guryahoodii iyo qorigii yaraa ay haysteen ay baarayaan ilaa hadda inagu socotaa madaxweyne haddaad og tahay kaama mutaysan
halka geelashu ay ka darmanayeen ka cabayeen harti iyo saaq baa ku dhan waa ku dhayin geelashu budlay Soomaaliya wada joogan kii budlay lama layn kii way Soomaaliya ee bahood baa la laayay oo geel rasaasi la mariyay oo ragii ay u mudda dagaalkuna saas ku dhacay aad tii xigtay budlay baa dagaal ka yimi technical way caara lagu sheegaya wuxuu wax ku laayay darwiin ku laayay dawladdu waa aragtaa waa uga baydha dawladdii gacanta kalama bixin ilaa hanaankaasay baadhayaan oo guryi baadhayaan oo nooc walba u qaadanayaan raashinkii baa la qaatay guryii baa la qaatay dharkii baa la qaatay uu sheegay in wax ka qabo haddii aan lagu sheegin annagaa kuu sheegnay waa meeshooda maraya marka waxaan leeyahay oo buntland ka soo duuli baaq waxaa u dirayaa muuse bixi in laga qabto dadka jabadan labada beeloodna heshiiskooda marka ilaahay samow keenaba imaan dabaysha caafimaad laakiin beesha bood waxay ku dhacday Soomaaliland dhanka qaatay qaado bay joogtaaba hadday buntland tahay hadday Soomaaliland tahay ay noqoto lacagta la mariyo ay noqoto qaatay qaado wixii buntland reebto in baaqira Soomaaliland waxaan leeyahay أحمد محمد علمي on cable TV على فين